wax nooga sheeg magaalada Jigjiga iyo waayaheeda. waa magaalo ay gumaysuhu aasaaseen. taariikh ahaan xagee ayay ka bilaabatay xadaaradda magaaleynta Soomaalida? waxay u badnaanaysaa gobolka Puntland. horta waa maxay qorsheyn magaalo qorsheyn lama sameyn karto haddaanay data iyo information haddaanu jirin. geeska Afrika waxaan u maleynayaa Muqdisho oo kale inay ahayd waxa la yiraahdo the most diverse city. haddaba magaalo tusaale ahaan aan u soo qaadanay Garowe kale maxaa looga baahan yahay inay noqoto magaalo soo jiidan karta bulsho badan? dhulkani wuu ballaaran yahay in laga saaro fakarka reer baale ama waa goof. min Nairobi ilaa halkan waa iska maran tahay. dhulkan yaa loo maakhira la geynaya xagee la geynaya. dhulkeenna inta badan ma lahan kaabayaasha muhiimka ah magaalooyinka Soomaaliyeed waaweyn sida nidaamka bulaacadaha sewage systemka, drainage systemka, waste managementga maareynta qashinka. marka sidee loo hirgelin karaa magaalooyinkeenu inay helaan kaabayaashaas? haddaanay magaalo sewage lahayn weli way shaqayn kartaa because arrinta sewage waa wax cusub. waxaan gaaladu ina siiso waxa ka badan waxa Soomaalida diaspora u keenaan. in idinka iyo kililka iyo even Hargeysa iyo Muqdisho fikir isweydaarsi la dhaafsado because wax badan baa ka soo baxa. magaalo markay sii korodho waxay samaysaa wax la yiraahdo heat island. bismillaahi raxmaani raxiim. mudanayaal iyo marweyn kusoo dhawaada madasha Mifakaraan kulankeedii 14aad. madasha waxaa marti ku caawa injineer Faysal Cabdi Rooble oo ah khabiir ku takhasusay dhanka qorsheynta magaalooyinka. Faysal Cabdi oo kusoo barbaaray ku dhashay dhulka Soomaali galbeed gaar ahaan Jigjiga u wareegay Xamar jabhad noqday qaybna ka ahaa jabhadii xoreynta dhulka Soomaali galbeed macallin qarda ka ahaa maalmo kooban kadib Xamar tagay u wareegay qurbaha ilaa uu gaaray inuu qorsheeyo uu qaabeeyo magaalada caanka ah ee wada taqaaniin ee Los Angeles. waxaan rabaa inaan ciwaankeena caawa oo ku saabsan mustaqbalka magaalooyinka Soomaaliyeed qorsheynta dhulka iyo ilaalinta deegaanka inaan caawa halkaan aan si fiican ugu jarjarno. waxaan ugu soo dhaweynayaa Mifakaraan. waxaan rabaa intii yareedo aan sheegay wixii ku dari lahayd. runtii bismillaahi raxmaani raxiim. sharaf bay ii tahay caawa in runtii aan goobta joogo oon u jeedo dad dhalinyaro ah. barbaarinta aad ka warantay waqtiga Jigjiga iyo jabhadana waxay la xiriirtaa ididiilada iyo radicalization wax la yiraahdo kobcinta dhalinyaradu ay ku kobocdo fakar odayadii ay ka soo bixi waayeen ama ay ka dhargi waayeen then iyagu ay awood qaataan. markaan waqtiga aragnay in wixii aan rabnay dhalinyaro ahaan aan helayn Soomaali ahaan dhalinyaro ahaan then kacdoono waji badan oo xataa nagu kalifaan oo teenager inaan isku dayno inaan jabhadaha galno. marka runtii baltaaca waxaynu u bedeli doonaa sida ka duwan oo inkastoon ogahay inaad u badan tihiin waxa la yiraahdo Gen Z generation oo hadda adduunka qasaya in a positive way si fiican inaynu ka wada munaaqashoon doono. marka waad mahadsantahay. injineer waxa ku soo kortay magaalada Jigjiga oo magaalo taariikh ku leh dhulka Soomaalida. wax nooga sheeg magaalada Jigjiga iyo waayaheeda. yes magaalada Jigjiga mawduuceena hadhowna way soo gali doontaa sida Garowe iyo Gaalkacyo iyo meelo badan. waa magaalo ay gumaysuhu aasaaseen. hadhow baan ka hadli doonaa malaha su'aalaha qaar ka mid ah. aabaha iyo hooyadayba originally waa reer Jigjiga. runtiina waqtiga aan korayay waxay ahayd waqti reerkan waan ka soo jeedo ay xanuun weyn ka soo baxeen. dagaalo ay inta badan waxaad maqasheen dagaalkii Maqtal iyo 60kii wax saas laakiin reerkan ka dhashay haddaan carabkaba ku dhufto Gari Kombo 1942 ayay dagaal la galeen Amxaarada. wadanka way ka saareen ayagoo kelidooda. then mar dambe haddana soo kaceen 48 buugan wadana hadda waan ku soo daray arrimahaas.
markii SYShu dhalatayna 48 to 57 macalmiyiga ayay galeen dhaqdhaqaaqii SYShu. dagaalkaasi wuxuu ku dhamaaday in 10 nin oo reerka ah magaalada dhexdeeda lagu daldalo Jigjiga. New York Times waqtiga ay timid oo la yaabtay xanuunka dadka lagu hayayo gumaysiga xabashidu. macna waxaan arintaa u sheegayaa maaha taariikhda meesha ku jirta, laakiin upbringing qofku wuxuu ku soo koraa valueska reerkooda iyo taariikhda reerkooda ay u sheegaan. marka kuma runtii waan garan karaa dhalinyarada halkan u badan in taariikho badan oo yagleelka Soomaaliya dawladnimadeeda ay in badan awoyaashood iyo abayaashood ka maqleen. sidaas si lamida baan ka maqli jiray reerka arrimaha gumaysigu dadka wuxuu u geysto iyo dagaalada reerku galeen. marka it shaped my thinking. xataa marka aad weynaato eed da' gaadho waxaasi kaama guurayaan. magaalada Jigjiga waxaa aasaasay nin caraba oo sayidka inuu la dagaalamo loo keenay aaga oo loo dhanay Cabdalla Daaha oo 200 oo Yaman ah wata, maadaama Yamantu sida xabashida Ingiriisku ay u qabeen la moodayay inay dhulka oomanaha ku dagaalami karaan. marka Jigjiga saasay ku asmatay, laakiin ka horow intaanay gumaysigu iman waxaa dhulka maray, haddaan ku yar daro arrintaas, odaygii badmareenka ahaa ee Richard Burton loo dhanayay oo Sheekh Cabdalla la baxay si uu dhulka Soomaalida ku dhex marana muslim iska dhigay, af carabiga bartay, af urduga bartay. marka uu Zaylac yimid ayuu boqor Sharmaarke oo markaa Zaylac xukumayay ku yidhi waxaan rabaa inaan adari oo markaa iyana waa magaalooyinka dhoon ka hadli doonaaye xadaarad islaam ahayd in markaa uu soo sahamiyo. waa waqtiga loo soo sahaminayo kambanigii East Indian Company loo dhanayay dhulkeena soo mari doona, goboladana aad u soo maray. sahan ka mid u ahaa boqor Sharmaarke wuxuu ku yidhi 2 nin baa aaga ka taliya, nin la yidhaahdo Garaad Aadan oo naga dhinaca iyaga ah iyo nin kale oo wiilwaal la yidhaah oo actually hooyaday waa iyana laynka wiilwaal bay ka timaadaa. wuxuu yidhi wiilwaal nin la ag mari kara maaha, waa nin xabadiisu meel kasta ay ku dhacdo, laakiin ninkan Garaad Aadan baanu xidhiir leenahay ilaa adarina xukuma. saasuu markaa waqtiga uu maraya Jigjiga magaalo maaha 1858 adari iyo Jigjiga waxa u dhaxeeya waa magaalo miyigaas. waxa intii ka dambeeyay Jigjiga markaa way magaalowday, waxay noqotay meel caravanku ama awrta u socota adari ee Zaylac ka imanaysa ay ku nastaan. taariikh ahaan xagee ayay ka bilaabatay xadaaradda magaaleynta Soomaalida? maxayse yihiin magaalooyinka qadiimiga ah ee dhulka Soomaalida? su-aasha runtii waan ka fakiray. waa meelaha aan daraasad fiican laga sameyn marka la eego cilmi baarista Soomaalida, laakiin bariyahan dambe buugaan bilaabo iguba yar adkaaday. macluumaadka aan ka helay waxaan isiri bal taxane u sameey. markaan su-aashaada arkay waxaan isleeyahay 3 timeline ama 3 xilli ayaa lagu dabiqi karaa magaalooyinka iyo xadaaradaha Soomaalida. midi waa wixii diinta masiixiga ka horeeyay BC before Christ waxay yiraahdaan, because waqtigaas muslim ma jirin. 99% xadaaradaas iyo city states magaalo goboleed waxay u badnaanaysaa gobolka Puntland oo qoraalada jira oo ama waqtigii masaarida ha noqdaan ama kuwa ka dambeeyay ha noqdaan ama buugga la yiraahdo The Propolis of the Eritrean Red Sea ama socdaalkii iyo raadistii badda cas. Eritrea waa badda cas, magaca xagaas ka imanaya. 6 goobood oo rag Greek iyo Roman qarnigii 5aad ay marayaan waxay sheegeen 7 goobood oo ports ay istaageen. hal mooye inta kale waa dhulka Soomaaliyeed berberaa ku jirta, laakiin waa Gardafu, Xaafuun, Calowla iyo ilaa dhinacan Garacda gaarkeeda mid marbay Muqdisho istaagayaan. markaas waqtigaas wajiga hore magaaleynta Soomaalidu waxay u badan tahay xadaaradihii ka bilaabmay Puntland iyo gaarkeeda city states.
wejiga labaad waa islaamka markuu kacay diinta islaamka oo ay arliga Soomaalida soo galayso haddana research waxay sheegayaan ayadoon diinta islaamku xataa qarni jirin inay dhulkeena ku soo faaftay wejigan labaad magaalooyinku waxay u badanayaan Muqdisho Marka Baraawe because islaamku halkaas xoog uga soo galaya marka magaalooyinka soo galaya iyo city states ka waqtiga soo galayana waa kuwa sheegay laakiin waxa uu heliyay marka dambe Ras Xafuun Berbera iyo qarniga 8aad oo Harar Adari iyo Zaylac marka waqtigaasna waa phase-kii labaad phase-ka saddexaad iyo magaalooyinka nooca aynu leenahay waa colonial cities ama kuwa gumaysigu sameeyay waqtiga Richard Burton oo arliga yimid wixii ka dambeeyay la sahamiyay 1850s ilaa hadda magaalooyinka aynu haysano Garowe waad oran kartaa waxaad oran kartaa Kalkacyo waxaad oran kartaa Kismaayo magaalooyinkaas aynu haysano waa waxaanu ku tilmaami karno colonial cities waa meelaha administrationka gumaysigu ka shaqeynayay marka horta saddexdaa waji ayaan ku soo koobi lahaa waxaad khibrad badan u leedahay dhanka qorsheynta magaalooyinka waaweyn faham fiican naga sii horta waa maxay qorsheyn magaalo maxaa looga baahan yahay si loo qorsheeyo magaalo qorsheyn runtii waxa weeye in ay waa laba midna waa physical oo waa dhismaha iyo jidadku say isku qaataan midna waa daryeelka dadka iyo baahidooda labadaas weeye labada qorshe so midna waa physical midna waa social labadaba waxaad u baahan tahay magaalo qorsheyn lama sameyn karto haddaanay data iyo information haddaanu jirin for instance siro dibir haddaan kaaga soo qaado guryuhu waa muhiim Garowe inta guri ay u baahan tahay ma haysan kartid mana fahmi kartid unless aad haysato demographic aad iyo aad u hufan dadka maanta ku nool magaalada waa imisa da'yartu waa imisa because da'yartu berri families bay noqon doonaan baahida electricity-ga waa imisa biyaha cabayaan waa imisa then marka aad hadda ogaato screen line database waxa la yiraahdaa then waa inaad ogaan kartaa 5 sano soo socota baahidaas iyadoo demographic isbedelayo then 10 sano marka qorsheynta inta badan waa ugu yaraan 10 sano ilaa 30 sano ma aha inaad kuwaas hadda wax u qabanayso laakiin inaad projectionka og tahay in waxaas ku sugayaan inaad og tahay marka runtii hadaadan waxa aadan haynin waxay noqonaysaa un crisis ka inaad manage garayso maanta dad baa halkan ka dhacay damiyay dad baa Garowe maanta ku soo qaxay xageenu guri uga raadinaa biyihii baa go'ay all that marka haddii aadan database ka haysan hadaadan projection ka haysan hadaadan comprehensive plan ka waqtiga dhow iyo waqtiga fog eegaya labadaba aadan qoran then trial and error waqtiga si buuxi noqonaya dhulkeena inta badan ma lahan kaabayaasha muhiimka ah magaalooyinka Soomaaliyeed waaweyn sida nidaamka bulaacadaha sewage systemka drainage systemka waste management-ga maareynta qashinka marka sidee loo hirgelin karaa magaalooyinkeenu inay helaan kaabayaashaas intaan su'aasha ka jawaabin meel yar ka duro kuwaas ma lihin ama magaaladu male kama dhigna in ay magaaladu noqoto waxa la yiraahdo streamlined justice city magaalo isku dhafan oo xaqsoor leh because inaad filmaanta ku aragtaan mooyee magaalooyinka yaryar ee for instance Mareykanka oo kale labada dhowrka shay ugu horaantaba ay dhisaan waa police station iyo mayorka meel yar fadhiistaan fire station iyo nin dadka soo xidha ama qof soo xidha hadii rabshadi dhacdo those are the minimum things cid kastaba ay sameyn karto haddaanay magaalo sewage lahayn weli way shaqeyn kartaa because arrinta sewage waa wax cusub waa qarnigii 19aad wixii ka dambeeyay bay magaalooyinka badan yeesheen xataa Mareykanka miyiga meelo badan sabtanka wax la yiraahdo ayaa lagu shubaa saxarada iyo xasaasa markaas laga qaadaa magaalooyinkeenu male waana very expensive waa qaali
shaqada iyo sida loo dhigana runtii way adag yihiin. Marka la dhiso lama sameeyo, rag badan engineer waa garan karaan iyo dumar. Marka aad dhulka qiyaasayso, surveyga aad sameynayso la yidhaahdo subdivision, markaasaad horta sewage-ka dejinaysaa iyo bulaacadii iyo wax kasta. Processka uu maro permit-ka ama markaad soo saaranayso warqadda, waxyaabaha lama dhaafaan ah oo qasab ah waxa weeye marka hore inaad zooninkaaga ogaato oo departmentkii planning-ka u tagto. markuu ku yidhaahdo 5 dabaq baad ka dhisi kartaa, then environmental departmentkii baad u tegaysaa, wixii environmentkii bay kaa eegayaan. maadaama markaad dhisayso rabshad baad ku keenaysaa xaafadii deganeyd, ama board baad ku keenaysaa ama qaylaad ku keenaysaa. environmental department markaa waxay kaa jeegaraynayaan, waxay yidhahdaan mitigation, maxaad waxaa ku daweynaysaa. aduu markaad waxaasoo dhan socotay transportation aad departmentadaasoo dhan tagto, marka ugu dambeysaden waa in aad sewage ama sewer departmentkii aad tagtaa adigoo dhulkii usii baneeyey. markaa aad tustaa meesha buildingkaagu qashinka ka baxaya already kii dhisnaa uu ugu tallaalayo. macnihi waxaa laga fikirayaa in already ay dhisan tahay system sewer dhulka ku hoos jiro. waa inaad tustaa sidaad ugu tallaalayso, kharashkaad bixin lahayd iyo fiidii iyo waxaasoo dhan. markaas ayaa lagu saxeexay. ugu yaraan waa inaad markaa martaa 8-9 department. waxa ugu dambeeya oo muhiim waad maqasheen, Weyhaan baa gubatay, Boosaasaa gubatay, Jigjigaa gubatay, Xamar baa hadii jeer gubatay, simply because fire departmentku saxeexiisa ayaa ugu muhiimsan intay isku jiraan. buildingku wixii baktiinaya ma leedahay, waayo lazman dadku waa bini aadam, wuxuun baa dhici kara, laakiin ma ka sii tashatay weeye. marka fire departmentku waa meelaha ugu adag. inaad magaalooyinka aragteen mooyeena fire departmentka iyo bileysku 70% budgetka magaalooyinka ayaga loo qodeeya. waayo citygu waxay hadhow noqonaysaa 2: public welfare and safety, amniga iyo magangelyada magaalada. waa labadaas, waa bileyska iyo fire-ka iyo structural engineering. gurigu inaanu ku dumin. markaad 300 qof guri u dhisto sida hotelka Mansour oo kale, habeen kaliya tidii haduu ku dumo khasaaraha ka soo gaadha ciidaas u leekaanaya. marka structural engineering departmentkuna isna labada uu galaa, iyo inta kale oo ah proprietary departments oo taakulaynta iyo qorsheynta ah. marka waxaasoo dhan waa la dhisi karaa, laakiin waxay u baahan tahay leadership. su-aashan waxay leedahay sidee magaalooyinka Soomaaliyeed looga bedeli karaa qaabkan hadda ay u dhisan yihiin oo ah in beel walba ay magaalo gaar ah degan tahay, dadku aysan isla degin, looguna bedeli karaa inay noqdaan magaalooyin bulshooyin isku dhafan ama dadyow badan ay wada degaan, hoggaankeedana dadkaas see magaalada u wadaagi karaan khibradaada. horta magaaladu waa waa space ama goob qofka bini aadmiga imanaya uu ku talagelayo in ay xaqsoor iyo equity iyo equality jirto. dee waynu lahayn mar magaalooyin caynkaas oo Muqdisho ka mid ah. dadka reer Puntland dadku waxay moodaan inay 1940s-kii tageen meesha, laakiin archivesku waxay sheegayaan in xeebta la mari jiray oo 400-500 sano ka hor goboladan laga tagay Xamar la degay. That's how Xamar was created. Actually geeska Africa waxaan u maleynayaa Muqdisho oo kale inay ahayd waxa la yiraahdo the most diversity Carab baa ku noolayd, Soomaalida reer kasta ku noolaa, Talyaani baa ka haray gumaysigii, Kaamba Amxaare Cabdicasiis baa jirtay oo xataa cinjeerada xabashida lagu sameyn jiray. hadda baynu markaynu laba xabashiya ku aragno Puntland yar boodnaay way joogeen. marka runtii dee waa wax dumay, sidee lagu soo loo heli karaa? I think waxa la yiraahdo magaalooyinka iyo rijinada pull and push factor, wax soo jiita iyo wax riixa. dagaaladii Xamar dadka way sayreen, way ka saareen
taasi waa push factor. Pull factor waxa weeye dhaqaale shaqooyin abuur oo meesha waad xasuusataan 70skii adduunka oo dhan wuxuu ku jabay Sacuudiga iyo meelihii Carabta saliida lahaa simply because waxba soo jiidanay qofka bini'aadmigu they have priorities waxyaaba daruuri u ah noloshiisa inuu noolaado in reerkiisa meel ay seexdaan nabadgelyo ku helaan xaqsoorna ku helaan aan lagu qabyaaladayn ama aan laga sheegan haday inta helaan waxay ku soo kordhiyaan xadaarad waxay ku soo kordhiyaan capital waxay ku soo kordhiyaan wax aan local ko kaliya lahayn marka waxay nagu dhacay leadership failure it needs leadership anoo si tixraacay hadalkaaga u dambeeyo pull factor-ka ama waxa dadka soo jeedanaya magaalooyinka adduunka waa tartamaan say u soo jeedan lahaayeen bulshooyinka iyo ganacsiyada sida tusaale ahaan Mareykanka inta badan waxaa aragnaa iyadoo kambaniyada waaweyn ay goboladu casumayaan haddaba magaalo tusaale ahaan aan u soo qaadanay Garowe kale maxaa looga baahan yahay inay noqoto magaalo soo jeedan karta bulsho badan siiba qurba joogta iyo dadka ka imaanaya gobolada kale ee dalka sax horta qurba joogta meeshan u dhalatay in ay meesha ku soo hirtaan waa in waxyaaba ay u baahan yihiin lacagta yar la imanayaan ay ku faa'iideyn karaan waa in loo sameeyaa dhulkani uu ballaaran yahay in laga saaro fakarka reer baale ama waa goof completely taa laga saaro in qofkii yiraahdo guri baan dhisanayaa free lagu siiyo dhulka qofkii yiraahdo business baan sameynayaa in la isku dayo in wax isku dhafan private waxna laga qaado waxna la siinayo iyadoo la eegayo qofkaas qorshihiisu inuu sax yahay oo ka soo bixi karo taas waa mid talabaad waxyaabo yar baa la qabtaa oo dadka magaalooyin jeclaysiiya waxa kamid ah exhibitionska book fair is one of them shirkii maalinta dhow ay BDRC qabatay oo Soomaaliya meel kasta ka timid waa halkeeda lagama yaabo cid kastoo markaa timid inay ku hadho laakiin horta intay joogaanna kharash yar bay ku turtuurayaan waxay iibsanayaan tagaasida ay qaadanayaan wax saasa laakiin positive impression bay ka qaadanayaan fakar fiican oo hadhow marka uu meeshii ku noqdo hadduu yiraahdo carruurtii diaspora ka saar ama meelgii in ay la helaan in fact waxaan ku dootami karaa Soomaalidu hadda dibadaha jooga waxay soo kordhiyaan $2 bilyan waxaan gaaladu ina siiso waxa ka badan waxa Soomaalida diaspora u keenaan laakiin ma qorsheysna ta gaaladu qorshantoo iyadoo bac ah oo duuban baa loo dhiibaa dawladaha tan diaspora waa tafaariq haddii la organize gareeyo haddii nidaam loo sameeyo waxyaabo badan bay qaban kartaa saabo kale waxa lagu qiyaasaa $10 bilyan in diaspora ay soo geliyaan that's more than waxa gaaladii World Bank iyo habeenaya maalin barayaan inaga Soomaalida ilaa 4 bilyan weeye dadka meelaha ka yimidna to be frank with you ayaga ugu badan I mean Minnesota hadaad aragto Europe hadaad aragto Canada hadaad aragto Cabdinaasir iyo Xasan iyo Canada joogeen haddii waxaan aaminsanahay leadership ku qorsheeyo ay aaminaan people need to trust in politicians waa inay dadku aaminaan qofkan kala duwanaanshuhu waa halkeeda is okay laakiin in aad garan karto hoggaanku in uu wax fog ka fikirayo interestigaagana ka fikirayo interestiga deegaankana ka fikirayo marka waana consciousness iyo garaad kordho weeye laakiin waa in seminar la qabtaa waxaan cirka kama soo degayo haddaynaan seminar qaban haddaan la naasnuujin and don't expect qof kastoo siyaasi inuu educated yahay they are not waxa laga yaabaa dhalinyarada su'aalaha frame garaynaysa markuu qofku yiraahdo maxay Puntland sidan ku noqotay maxaa sidan kaas waxa laga yaabaa inuu answers heli karo laakiin ninka satisfied ah meel iska raaxaysanaya inta badan challenge aan lahayn jawaabtu kuma imanayso jawaabtu waxay ka imanaysaa ka challenge garaynaya marka seminaro mawduucyo badan laga wada hadlo in dad ka duwan la macsuumo in idinka iyo kililka iyo even Hargeysa iyo Muqdisho iyo fikir isweydaarsi la dhaafsado because wax badan baa ka soo baxa inaga halkan waxa caqabada dhulka qiimihiisu aad u sareeya marka inta badan dadka jooga xataa aad ugu ma dhiirsadaan inay wax ka dhistaan bar dhulka sida loo maareeyo iyo qorshayaashiisa wax noogu dar
horta dhulka dee wataan idhi goofka laga saaro horta goofnimada taasi waa number one. Dowladdu waxay keeni kartaa horta dhulkan inuu qaali yahay meel kasta oo ka jiraan, laakiin waxaa jira non governmental organizations la maalgeliyo oo dhulka iyagu ama si dib yar dowladda kaga gata ama qiimo yar kaga gata fadhiya. Waxay sameeyaan wax la yidhaahdo land banking, way ku fadhiyaan dhulkaas, then application loo qorto ama guddi ahaan ama NGO ahaan, marka iyaga lala shaqayn karo. Of course macnaheedu adsaab waxyaabaha cadowgaaga dil gartiisana siin. Markii qoladii Malas iyo Tigray ay soo galeen 1990s bay bilaabeen diaspora oo dhan fariin bay u direen ay leeyihiin ninkii guri ku filan dhisanaya 500 kilometer baan u maleynayaa tiradii ma hay hadde in uu free u yahay oo la siinayo. Waxay wadeen 20 sano noocaas ayay saawadeen oo dadka marka dad badan oo diyaas iyagu waxay qaxeen Ethiopian waxay meesha tageen 1920 states. Marka dad badan baa ku soo noqday. In fact asaab markaasay asaabadu waxay wax yar oo kooban oo xidhan oo taasaa horta furfurtay. Marka dawladda waxaan ku goobaabinaynaa in ay runtii ka fikiraan in dadka jooga horta qaran joogta miya leeyahay. Marka hore I would say one in survey la qaado oo bal fiiriyo demographic hadda dhalinyaro badan waxa jirta hadda beri dhow guriga galeel sameyn. Those are the number one candidate in dhul la siiyo. Dhulkan waxa ugu muhiimsan guriga iyo wax business laga sameeyo. Marka bal in dawladdu daraasad degdeg ah samayso dadkana lagu macsuumo sidii dhulka nooca loo siin lahaa. Waayo dhulkani taas markan hadda diyaaradda soo socday min Nairobi ilaa halkan waa iska maran tahay. Dhulkan yaa loo ma akhira la geynaya xagee la geynaya I really ma garan karo. For your information waxa weeye dhulku halkan dawladdu ma leeyo niman dalaalina ba gacanta ku hayo ka iibinay intay rabaan barayskan iyaga jangooye. Marka ka gudbaya su'aashaas waxaan ku weydiin lahaa su'aal la xiriirta arrintan cagaarinta magaalooyinka iyo in la helo green space. Inta badan magaalooyinkan ugu ma jirto qorshaha. Maxay faa'iido u leedahay magaaladu inay hesho green spaces iyo magaalada in la cagaariyo? Wow, I think the number one horta waa caafimaadka. Dhirta saad ku ogtahay dad badan oo scientistiga iga fiican baa jira, laakiin oxygen bay sii deysaa habeenkii, kaarbonkana way naga saartaa, hawada kuleylka way ka saartaa. Meesha dhirta badan xataa kuleylka 5 to 10 degrees bay hoos u dhigtaa. Kulka meelahan oo kalena waa muhiim. Cayayaan badan baa ku hoosno waxyaabo badan oo ecological oo dadka scientistigu iyagu ay leeyihiin baa jira, laakiin from planning perspective marka xagga planning qorsheynta laga eego magaalo markay sii korodho waxay samaysaa wax la yiraahdo heat island. Sibirkan iyo dhagaxan dhulka la dhigaya haddii dhulku markii hore carra ahaa kolba sibirka markaad badiso 10 degree oo kuleyl ah baa ku darsama heat island baa la yiraahdaa. Heat islandiga waxa kaliya tad ku soo naaqusi kartaa iyana waa dhirta. Kaarboonka la sii deynayo waxa dhirtu waa qabataa. Waxyaabo badan baa jira, laakiin barnaamijyadan cagaareynta waa demoojinay su'aashaas ka dambaysa inaan ku daro, laakiin inaan ka faa'iideysto. Cagaareyntu waa laba mid waa tan campaign-ka qofku intuu ididiila gasho uu yiraahdo hayaay meeshii dry bay noqotay waa inaynu geeda beeraa. Waata inta badan dalalkeenu ay ku dhaqmaan. Taasi waa one time two time project. Waxaan laga yaabaa qaarkood waxaad beertay inay iska engegaan because systemkii kuma xidhna. Laakiin meelaha dhawaan ka hadli doonaaye ta waxa jirta greening ama cagaareyn la socota permit processka magaalada. Projectska marka la dhisayo waxa ay qaadanayaan iyo projectiga la dhexgeliyo marka hadaad rabto hadaan waqti yar haysto ku so tan markii campaign-ka imika Abiy uu dhisayo kale ilaa cagaareynta I don't know intay jiri doonto 5 sano 10 sano because markaad wax beerto muhiimadda ugu weyn waxa weeye who's gonna take care bariya ilaalinaya saadan bay ilaalinaya. Taasi waa halkeeda waa campaign taasi.
laakiin ta muhiimka ee wax ka tarta waa ta projectiga integrated laga dhigo. See looga dhigayaa dhul baad develop garaynaysaa 300 oo kilometer ka soo qaad imika hotelkan Martisoor aanu joogno marka uu permit ka yeelanayo every square feet waxaad ku qiimeynaysaa inta cagaareed ka rabto iyo inta geedeed ka rabto. marka saddex baad u qaybinaysaa cagaarkii geedka aad ka rabto. waxaad leedahay haddii projectiga intaas oo qol 300 qol uu yahay de waxaanu ka rabnaa 30 geedasha waaweyn ee harka calculation formula ay leeyihiin. waxa kale oo nu ka rabnaa intaasoo caws dhulka aad dhigto dhagaxan hadda yaala caws baad ku bedelaysaa iyo intaasoo dhirta yaryar ee koonayaasha la dhigo waana isaga mas'uulka ah in aanay qalalin isaga mas'uulka ah sida gaariga ka traffic loo ganaaxo ayaad u ganaaxaysaa waanad monitor garaynaysaa. marka waa codified waxa weeye environmental department-ka permit-ka la soo qaadanayo tafayarka ayay la mid tahay in marka intaadan permit-ka buuxa qaadan inaad environmental department-ka la tagto oo wixii oo dhan tusto wixii ay ka rabeen iyo landscape plan aad siiso. landscape plan-kaas aad ku dhisaysaa. marka meel kaliya ma kala badnaan waxaad arkaysaa magaaladii oo uniform trees leh uniform cagaar leh wixii oo isku wada mid iyo wixii maintenance-ga expensive oo xataa markuu qofku ka guuro ka guriga leh ama ka building kale ayaa mas'uuliyadu saaran tahay inuu cagaareynta sii hayo.